بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وارد السلام يا ساودنتين قف كستا وحن كو سلام يا درجة أولية هاي يا مقام كيسا كو سلام يا مدحوينا يسوى كدوين يا مدحوين السلام عليكم. هذا سجارة كو سلام يا هذا مدحويني قرن كات هاي قف وترين كريم مايو لكن أنت إيه مقطع ودadkii madaxda ahaa ee la qadarin jiray dhamaantood halkan dadka isugu yimi ee xafladan ka soo qayb galay marka aad iyo aad u mahadsantihiin haddaan anagu nahay bangiyada waxa ku hadlayay inankii halkan iga horeeyay oo si wanaagsan u sharaxay waxa kale oo ku hadlay Dr. Ali Abdullahi Daahir ayaa isaguna ku hadlay taariikhdii waa laga soo sheekeeyay xaaladahaynu soo marnay anigu kulley waxaan hayday nin weyn oo dadka oo imka meelaha jooga madaxweynuhu baan isku da'nahay baan u maleynaya kulley inta anigu aan joogay madaxweynuhu uu joogay marba marxalad baanu soo maray inkastoo isagu yahay waa ka yara oo markuu ordayo kale dhoolo tusad buu ku jiraa intaasoo anigu inta ma ordo marka deegaadka rag leeyahay inta uu soo dhoolo tusanayaado markaan ku arko adoo dheeranaya anna masasada brit aad oradi laakiin anida wax iga duubana haysan iyo waxay hor ordo toon marka ilaahay ma hadiyo horta qofku hadii uu weynaado anu waan ku faana dadka qaar way isqariyaan anu waan ku faanaado waxaan soo joogay waxa laga sheekeynayay ay ragii hore iga hore ay ka sheekeynayay waa soo taagnaa iyadoo la burburinayo dal aan dhisan aanu joogno oo dibadda la burburiyay oo dibadda dal cusub bilownay taa waa soo joogay iyadoo baanka burco anu baan joogado baanka burco qasnadiisa waxoogaa yar ku hadheen oo la isku dilay oo la isku haysto shilmaadka yar meesha ku jira soo saara oo waxa la waayay midkii furahayaba wuxuu la baxsaday furi waxa laga soo helay berbera waa in la yiraahdo oo imikana Mareykan nooga shaqeeyo oo waxa la yiraahdo magaciisa waa nimka wayga lumay marka horta waa markii uu keenay Salmaan Maxamed Aadan oo markaa ahaa wasiirka lacagta iyo wasiirka maaliyadda waxa mooyay ayaa wariyaa wayna kaaga yar furimaada haya bas waan haya markii war la isku dhimay kan baalka inta dambe isku dhiman waa la isku asin qasada fura alagu kala yaacay marka horta taasaanu soo joognay waxaanu soo joognay markii lacagtan la soo daabacay ee loo yiri siro ku dara ama siro oloniyood taana waa soo joognay waxaanu soo joognay markii barwaaqadan laga tirinayay la sheegay marba halkii ka soo qaadmisay waa soo joogay baa musharigu meel fiican buu soo gaarsiiyay ilaa intada waa daadihinana waa tii laga sheekeynaya lacagta aanu gelinay dalka waa taa tiibaan walba diyaar u lanahay ilaa inaynu barwaaqada halka la doonayo gaadhno oo technology-ga dunida gaadhno baa mushariga qaranku ay bangiyadu waa la dhabarta sida la sheegay dawladuna wayna kaalmaysa haddaan banku jirin wasaaradda maaliyaddu jirin dawladdu jirin ma gaadhnay halka anagu markii aan xawaalada iyo waxa aan ku bilownay ee aanu meel gaadhnay waxaanu sharaxi kari weynay markii aan cid weyn rumaysan weeyday waayo qofku is amaanay baa loo arkaya laakiin marka qoraal ee meeshii aad joogto liisan lagu siiyo shaabad bangi ku ilaaliya aad tiraahdo bankaasaan hoos imaada caynkaasaan hay waa la soo taagaya laakiin hadda tiraahdo anu baana isu sameeyay anu baa sharciga isu sameeyay anu baa caynkana cid alle taasi ma aha shaqo lama yiraahdo marka banku aad iyo aad buu ayuu uga qayb qaatay Central Banku anigu Central Bank baan banki ganacsi doonayna inuu noqdo way wada tartamaya marka waxaan jecelahay banku horta inuu halkii bangiga dhexe nagu ilaalin lahaa oo ku ekaado aanu isagu noola tartamin oo aan shaqaalaha dawladda iyo waxa anagu kala shubano marba sidaan anagu u horumareenno anagu meesha ku kaliyeysana horta anagu jecelahay idinku ama yeelana ama yeelina marka horta
shaqaale fara badan baanu haynaa inta la sheegay lacagta 400 milyan waanu maalgelino waa taa ka muuqata magaalada Daaru wada dhalaalayaan waxa soo dhan waxay ku tibin nabadda iyo dawladda uu hogaaminayo madaxweynaha maanta jooga ee markii horena marba meel soo joogay qayb uu ka qaatay nabadda iyo quruxda maanta jirta madaxweyne annagu waxaanu leenahay waxaan jecelahay nin baa laga sheegay nin oday reer miyo oo xagga yagaas bariga ayaa nin sheekh uga sheekeeyay aakhiro iyo nimcada taalle iyo jannada la helo sidoo uu eegayay ayuu odayga reer miyo wuxuu yiri war sheekh anu taydana la bartay halkaygan ma leedaynaya marka anagu waxaan leenahay war anagu adaanu kula baranay runtii maraan musliin iyo mar walba adaanu ku baranay marka waxaan ilaahay kaaga rajaynaynaa inaad noo joogtid oo qof cusub taagu ma hayno oo aanu imika bilowno adigaanu kula soo jabnay adaanu ku naqaanaa adaanu ku baranay marka taana waxaan kugu ducaynaynaa oo kugu garab siinaynaa joogitaankaaga taasina waa taa oo waa ku rajaynaa qoladeena banka waxa uu hadlay inanka yaray fariidka haye aan gudoomiyaha ay ka dhigteen aad iyo aad baad u mahadsantahay sidaas baad inoo sharaxday inta harsanna ada halka ku dari doona aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan filayaa inta inaan ku soo koobo dawa macluumaad inaan anigu isamaano ma toylaado waxaan qabtay halkan ka soo riday iyo halkan ka walaalacsi taa oran maayo ragii hore ka sheekeeyay laakiin banku meel fiican buu maraya doctorku sida uu noo sheegay doctor Ali horumar fiican buu gaarsiiyay in kastoo meel walba daar dheer oo naga soo hor dhisay annana sida uu madaxweynuhu sheegay mid quruxda buu halka agteeda ka taagado madaxweyne dahwada baad naga qarisay waxaan jeclaan anaga iyo qoladan kale ee tali Soomaa aan saaxiibadana deenaanu meesha ugu muuqanay marka dawladna la tartamo sidii u maaro weynado marka waa ka ku haynayeen marka aad iyo aad baa u mahadsantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh